anigoo ah Sheekh Cabdicasiis Dhicis caawa waxaan idin soo bandhigayaa habka wacan ee loo kariyo ama loo foorneeyo kalluunka nooca loo yaqaan red snapper sida aad ka daawan doontaan mar dhow shaashada telefishinka meel walba aad joogtaan malaygii waxa aan yeelay waan dhaqay qasharkii ayaa ka saaray cusbo iyo filfil black pepper ayaan dusha ka mariyay kadibna carfiyaashii marinate-kii aan isku shiiday kabsashii iyo carfiyaashii kale iyo sanjabiishii wixii aan isku shiiday ayaan dusha ka mariyay waxaan kaloo aan marinayaa fish glaze oo molasses dhacaanka qasabka ka soo hara iyo brown sugar coriander iyo black pepper intaas ayaan marinayaa cusbo waa ku dari karayaa fish glaze-ka maadaama black pepper iyo cusbo aan malayga aan mariyay si cusbada ay iiga yaraanin cusbada waa ka daayay cusbada malayga un baan dusha kaga daray waxaan dhinaca kaloo aan diyaarsaday barbarooni iyo yaanyo aan u googooyay si isla eg ayaan u googooyay sixni aluminium ayaan soo qaatay waxa aan mariyay butter kadibna barbaroonigii ayaan ku shubay kadibna malaygii iyo carfoona ayaan dusha kaga daray malayga inta aan barbarooniga iyo yaanyada dusha aan ka saarin marinate-kiisii ayaan mariyay faranjeerka ayaan geliyay 2 saac iyo faranjeerka ku jira waxa haddaba haboon markasta aad malay aad suubinaysid in at least 2 saac aad marinate-ka aad ku dhigtid haddii malaygii marinate-kii aan ku dhigo bannaanka aan dhigo malaygii waxaa gelaya bacteria ku dhalanaysa si bacteriyadii aan kaga hortago oon maaragtay khasaare kale aan meeshii oo ka imaanba waxa aan yeelayaa marka horeba malayga markaan marinate-ka aan ku dhigayo faranjeerka ayaan la gelinayaa sidaas ayaa habboon hadda waxaan faranjeerka kala soo baxayaa oo jeedaan waa malayga waa hoolay si fiican ayaan u hoolay qasharkii waa ka bixiyey marka ujeedaa qasharkii waa ka saaray labada dhinac maadaama aan malayga aan qasharkiisii aan ka saaray waxaan labada dhinac ka marinayaa cusbo iyo filfil waxaan u gadinayaa dhinaca kale cusbadana waan u qiyaasayaa malaygii halkan ayaan dhigtay halkaas ayaan malayga dhigtay waxaan hadda aan suubinayaa hadduu ilaahay yidhaahdo nooc ka mida marinateska oo lagu daro malayga waxaan marinayaa fish marinate iyo fish glaze oo aan dusha ka marinayo waxaan isku shiidanayaa sanjabiil 2 qaado 1 qaado oo toon ah dhowr xabo basbaas cagaar ah lemon rind oo ah qobka kore oo limonka lemon rindiga caraf ama udgoon gaar ah ayuu leeyahay malaygana aad buu u carfiyaa liimo ayaan jaray waan miirayaa liimada miraheeda waan ka saaray liimada waxaa habboon markaad miiraysid in aad miraha ka saartid half cup oo limon ayaan ku daray blenderka aan carfiyaasha ku shiidayay hadda waxaan ku darayaa 5 spice oo ah carfiye ayaan ku darayaa 5 spice wuxuu ka kooban yahay filfil star anise dhagayare qorfe fennel seed anise seed waa carfiye ku habboon malayga iyo hilibka wuxuu leeyahay caraf gaar ah dadka badanaa waxay isku qaldaan anise seed iyo star anise iyo annatto seeds anise seedku wuxuu leeyahay miro yaryar star anise wuxuu leeyahay caleen qalalan oo leh xidig 7 geesood ah annatto seed waa qururux yaryar oo sida dhagaxaan yaryar ah oo 3 gees leh oo gaduud ah anise seedkii waan ku daray waxaan kaloo ku darayaa coriander oo ka mid ah nooca xawaajka iyo kabsal rosmarino carfiyaasha oo dhan waan isku shiidayaa markaan isku shiido carfiyaasha oo dhan waxaa kaloo hore u diyaarsaday nooc kale oo fish glaze ah oo aan marinayo kalluunka malaygii hore waxaan u mariyay cusbo iyo filfil fish glaze-kii aan horey u qastay ayaan dhexda iyo korka kalluunka ka marinaya fish glaze-ka malayga wuxuu siinayaa udgoon sida barbecue-ga oo kale ah iyo dhadhan wanaagsan malayga waxaan kaloo marinayaa marinate-kiisii oo aan shiiday faranjeerka ayaan kula dhigay fishka sababtoo ah waxaa habboon malayga iyo hilbaha in marinate-ka aan bannaanka la dhigin bacteria ayaa ku dhalanaysa haddii fishka bannaanka la dhigo saacad iyo wixii ka badan 2 saac ayaan kula dhigay marinate-ka faranjeerka
malayga faranjeerka ayaan ka soo saaray. Waxaan hadda diyaarsanayaa barbarooni iyo yaanyo aan si isla eg u gooyay. Barbarooni iyo yaanyo waxaan ku riday sixni ama aluminium tray oo aan butter hoos ka mariyay. Malaygana dusha ayaan ka saaray. Fishka waa aragtaan marinade-kiisii iyo khudradiisii waan ku daray. Barbarooniga wuxuu siinayaa caraf iyo qurux aan la koobi karin kalluunka. Aluminium-kan ayaan foornada la gelinayaa kalluunka. Foornada waan sii kululeeyay ama sii daaray 10 daqiiqo si iyadoo kulul temperature-ka foornada uu gaaro meesha aan ka rabay. Ovenka waxaan geystay 423 Fahrenheit 36 daqiiqo ayuu ku jirayaa foornada kalluunka. Waxaan suubinayaa sauce butterkii oo ujeedaa waxaan saartay birtaawadi waa maltigreenayaa. balsamic vinegartii iyo butterkii markay isla ciirayaan si fiican iskula karaan ku darayaa maraqii ka soo haray malayga ayaan ku darayaa iyadoo maraqiisi aad u macaan yahay ujeedaan maraqii aan ku daray maraqii waa isla karkarayaan sauce-kii maraqii malayga aan ku daray balsamic vinegar aan ku daray wax yaro cusbo ah aan ku daray kabsar caleentaas wax kale kuma darin iyo yaro butter ah. Sauce-ka marka uu kursado oo uu half noqdo waan ka qaadayaa waxaan dusha kaga darayaa malayga. Wuxuu siinayaa dhadhan macaan iyo qurux. sida aad shaashada ka daawanayseen sauce-kii waan kariyay. Sauce-ka waxa uu ka kooban yahay maraqii dhacaankii ka soo haray malayga iyo yaro butter iyo yaro balsamic vinegar wax kale kuma darin. waxa aan ku daray wax yar oo waxa la yiraahdaa kabsar caleen. intaas marka aan isku maaragtay kariyay oo sauce-kii uu noqday half noqday sauce-kii ayaan soo qaatay malayga ayaan dusha kaga daray. barnaamijkeennii caawa malayga nooca loo yaqaan red snappers intaas ayuu ku egyahay. inta aan hawada internetka ku kulmi doono barnaamijyo kale oo kala mid ah sida iyo nabadgelyo.